أنا waxaa la yiraahdaa magacayga Shariif Yaxya Shariif Muuse waxaan nin Soomaaliyeed waxaan doonayaa inaan sheeko ka sheekeeyo ragga Soomaaliyeed ee xaasas kala dhamaantiiba waxaan u qaybiyay saddex qaybood qaybta koowaad waxaan u bixiyay goob qaybta labaadna waxaan u bixiyay rugmad qaybta saddexaadna waxaan u bixiyay waalasho qaybta koowaad ee goobta waxaan u bixiyay nin hal xaas leh waa nin goba biil ma waayo reerku kuma ceel qabo ciyaalkiisa uu cadaalad sameeyaa qaraabadiisa uu xiriiriyaa dariskiisa uu xiriiriyaa dhammaan dadka la nool deegaanka uu ku nool yahay wax fiican iyo fikrad fiican iyo nin goba inuu yahay nin fiican inuu yahay nin akhyaar inuu yahay ka aaminsan yahay ninka sababtoo gurigiisiiba u xafdiyaan gurigiisaan wax dhibaato ah ka haysanin wax problem gurigiisa kama jiro wax mushkilada ma jirto ninka gob baan u bixiyay ninka labaad waxaan u bixiyay waalasho waa nin laba xaas leh ninka labada xaas leh dhibaatooyin buu qabaa mar walba horta wuxuu ka fog yahay way u maleynayaan xaasaskiisu inuu ka fog yahay waxa cadaalad la yiraahdo iyaga say aaminsan yihiin ma cadaalad sameeyo biilkooda uma cadaalad sameeyo ciyaalkiisa uma cadaalad sameeyo qaraabadiisana uma cadaalad sameeyo waxaan ka wadaa waa fikradda ay aaminsan yihiin xaasaskiisu ay isaga kama hadlayaan waa laga yaabaa inuu aad u cadaalad sameeyo laakiin iyagu marna ay yani 95% dumarka Soomaaliyeed marna uma aaminayaan qofka inuu wax cadaalad u sameeyo inkastoo waxaan u sii qaybiyay darajada waalida rugmadka darajada A iyo B eeda markaa waxaa qayb ninka qaba laba xaas oo isku hal family ka soo jeeda ama ay reerahooda is yaqaanaan ama ay cidooda istaqaamo maalin walba wuxuu u heenayaa gurigiisii oo sheeko kala lagu hayo oo la leeyahay reerkaas aad waxa tartay reerkaas aad waxa u qabatay xaaskii kale waxaasaa tartay ilmihii ciyaalkaagii kale waxaasaa u qabatay mar walba habeen kasta waxay u baahan tahay inaad sheeko u heeto adag oodan waxba ka ogeyn ama waxbana ka jirin la asal lahaa waliba waxaan u qaybta biidana waxa weeye nin laba xaas oon isaqoonin oon hal family ka soo jeedin qaba qaybta ugu dambaysa oo waalashada aan u bixiyay waa nin saddex xaas iyo afar xaas u gudbay boqolkiiba 90 waxaan aaminsanahay inuu mas'uuliyado badan dhumiyay oo ay ka mid tahay inuu reerihiisa yani u cadaalad sameeyo inuu dhinaca yani beelka kala cadaalad sameeyo inuu ciyaalkiisa ogaado inuu iskoolkooda ciyaalkiisa la socdo xanuunkooda inuu la socdo yani waxba kama ogaadeen xaasaska wax badan ragga intiisa badani rag badan oo kamid ah dhinaado wax badan kama oga marka maxaad waalin ugu tilmaantay waxa waalin ugu mismaayay mas'uuliyadii saarna ayuu wax badan dayacay oo waxba ka ogay saasaan ugu tilmaamay waalin inkastoo istilaaxan anagu aan istilaax iska leeyahay uu yahay bas waxa kaloo aan ka rabay inaan ka hadlo iyadana laba qodob oo ah mid aan ragga aan kula dardaarmayo xaasaska badan oo ama darajada rugmadka ku jira ama darajada waalida ku jira midna ka waxaan lahaa xaasaska markay xaasasku ay laba iyo wax ka sii badan yeelataan waxa la fiican in aad magacyada xaasaskiina aydaan isticmaalin magac kaliya oo hal magac aad u isticmaashaan sida sheekhadii oo kale iyo taad la joogto waxa fiican inaad tiraa sheekhadii aaway amiiradii aaway lafdiya saasa inaad isticmaasho yaa fiican haddii aad isticmaali weyso waxaa dhacaya tasaadum iyo isku dhac baa dhacaya oo waxaa laga yaabaa inuu mid aad magaceedii ta kale ku samido ama aad adoo Faadumo la joogo Xaliima aad tiraado haddaa Xaliima tiraado waxaa dhacaya dhibaato badan baa dhacaysa waxaa kaloo kula talin lahaa iyadana haddii maray xaasaskaaga iyo ciyaalkaaga iyo ilmahaagu badan yihiin ilmahaaga ha way isticmaalin in badan magacyo waxaad u isticmaashaa مثلا aabo oo kale inaad tiraado kii aad la joogto in aabo tiraado way fiican tahay sax laakiin adiga qofka xaasaska badan lana oo si fiican tahay maxaa yeelay haddii aad aabada isticmaali weydo waxaa laga yaabaa Xaliimo ki yaraay dhashay Cabdullaahi loo oran jiray adoo la jooga inaad ku ay Faadumo dhasho Maxamed la yiraahdo Maxamed ku tiraado waxaa dhacaysa dhibaato marka islaanta xanaaqaysa wiilka ma ahan wiilka ma aha laakiin islaanta xanaaqaysa oo oranaysa gabadh islaanta laga jeclaa wiilkeeda dadka la jecel yahay magacooda la sheeg bay ku oranaysaa oo kale Shariif aad u maasanta